casharkeeni hore waxaan ku soo barannay 21ka shibanayaasha ah. Haddana waxaanu baranaynaa shaqalka gaaban a, e, i, o, u. Shaqalka gaaban iyo shaqalka dheer mid walba wuxuu sameeyaa dhawaaq gooni ah oo aan raacin xarfaha ama shibanayaasha. Erey walba oo aan qorno wuxuu wataa hal, labo shaqal ama in ka badan. Tusaale ahaan haddaan soo qaadano ereyga aqal wuxuu leeyahay laba shaqal oo gaaban. Wuxuu ka bilowdaa shaqalka a, dhexdana waxaa ku jira shaqalka a sida ka muuqata midabka buluugga ah. A, qa, a, l, aqal, aqal. Ereyga dami wuxuu leeyahay laba shaqal oo gaaban. Waxaa dhexda ku jira shaqalka e, gadaalna waxaa u dambeeya shaqalka i sida ka muuqata midabka buluugga ah. Da, e, ma, i, dami. Ereyga bil wuxuu leeyahay hal shaqal oo gaaban i kuna jira dhexda sida ka muuqata midabka buluugga ah. Ba, i, la, bil, bil. Ereyga labo wuxuu leeyahay laba shaqal oo gaaban. Waxaa dhexda ku jira shaqalka a, gadaalna waxaa u dambeeya shaqalka o sida ka muuqata midabka buluugga ah. La, a, ba, o, labo. Ereyga sug wuxuu leeyahay hal shaqal oo gaaban kuna jira dhexda waana u sida ka muuqata midabka buluugga ah. Sa, u, ga, sug, sug.